Good morning. Welcome, everybody. Today we have a beautiful event. You can hear the background, the drums. We are at the National Museum of Somalia. Today I'm one of the artists performing here, but behind me there is a traditional dance going on. This is very traditional to Somali women. This event is about Somali women. It is called The Window to Her World. Here we are holding on to our creativity. Samal. And also it's where you're feeling belonging and trust. Yeah. Yes. Sense of belonging, community. Absolutely. And the home of the artists and the creative industries. waxaa leeyahay waa guriga hooyga iyo fanka iyo hal abuurka oo dhan. So I'm surprised that I'm meeting with the team here, SONAT. They are the Somali Society of the Deaf organization, and they have produced a sign language book. I did a documentary with them, so that's how I met them, and then I saw them here in the event. So we're gonna welcome Osman, who's the chairperson, and he's gonna show us a little bit about sign language, a little sign language. هذا مركون ترجمة. ما شاء الله كله وهذا وكهذا قدوميها أوركا دولة قرنك الصومالية عثمان محمد نور وكهذا هرت آدي أنا وفر حسن ويري ما دام حفلة ما أنت كسوق قبلني سهرنا أي وحدي وحي نقدو بيسو آدي هذا ومعلنينا سهرنا وحاول يعني وحاول مضح النص أرنتهاي مرك آدي أنا وفر حسن هاي إنه معناها يشجع عن مر والبا عن حفلة كسوق قبلنا بق سهر إلى جرب كنا جتاعنا آدي هذا وباهنا هاي marka aadaan ugu mahadsanna aadaan u mahadsantihiin waana salaamantihiin beefkiisa salaaman waa mahadsantihiin adeer maali insha allah. Mahadsanid adeer. I hope you enjoy the event. Welcome. She's also part of the Somali Deaf Association, and she's not deaf, but she advocates for deaf people. Welcome, Sabrin Sado. وما سنت هاي وحنا لنا دوكيومنتري سمينة يس سهرة هراء اسكون قاني هراء اسكون شقيني ما أنتني وحنا سكوارجني بنحف قرنك وبنيك دعاية هذا وفرح سنة هاي سهرة هذه سنة. Thank you. Welcome. I think everybody's leaving. Where's everybody going? I should be performing poetry. Let's go. Let's find out where everyone's going. Everybody just left, so let me find out where I'm supposed to be. Assalamu alaikum. Yeah, alhamdulillah. Thank you. So you're the director of the National Museum. Welcome. This is my vlog. Oh, yes. I'm also one of the artists that's performing. I'm doing a poem, for yes. Somali women. Somali women, wow, okay. So do Tell us about the event today. Event كمان. Event waxa waaye dhiirigelinta muxuu ahaa hablaha Soomaaliyeed farshaxaniinta iyo qaabka ay wax u sameeyaan muxuu ahaa xirfadooda inay horumariyaan waa dhiirigelin loogu talagalay gabdhaha Soomaaliyeed ee farshaxaniinta inay isku soo bandhigaan hawshooda maanta saasa. Her skin glistening with subak sihin, scented with care, the dowry of her daughter, more than 100 camels, a wealth not just in numbers, but in legacy. Pause. Now let's press forward. She stands in a time of turmoil. Her skies are heavy with smoke, her single braids undone by the winds of war. The Guntino now clings to her like the weight of the past. So now we're going to meet with the Minister of Education. I'm going to go there. We're taking a picture.
dhinaca geeskaas. Okay, no problem. Anyway, we're here at break. I need a cup of coffee because the amount of cameras in my face, I think I've never had that much cameras. I feel like a celebrity today, right? I feel like somebody that's well known. I'm still not known yet. The type of known that I want is like Mr. Beast, okay? I don't want this temporary 4 walls. I want to be as big as Mr. Beast. Is that going to be possible? Let's see, maybe, okay? Also, I just want to highlight, look at the view. Look at the view. Beautiful day. Look at the architecture, the design, the window frame. This is literally the window to her worlds. The National Theatre was designed in the 1980s, and after the Civil War, it still managed to retain its structure, although there was some damages, but as you can see, the original state of the structure is still intact. Also, the interesting thing is that during 2017, which is the time where it was reconstructed, 2017, 2018, people in the community were asked to volunteer and donate their time to reconstruct government facilities such as the National Museum and the National Theatre. So yes, this is amazing, and yeah, let's meet more people. That's what today is all about. Let's go. And I think Abaya Iman Wahawai, videographer. She does beautiful little videos, as you can see here, and so do Abaya. I have the microphone here attached and it's on. Is it on? Yes. Yeah. Sahra iyo Faaduma muuqaalku wuxuu ku saabsan yahay gabdhaha Soomaaliyeed activity-ga ay qabtaan ee maalinlaha ah ama noloshooda dhan ku salaysan haday tahay mid guri mid banaan iyo mid waxbarashada waxa arki kartaa gabadh dhar dhaqaysa oo gurigoodii joogta gabdho baatiyaal gashan oo cilaan isku marinaya gabdho wax baranaya gabdho xafiis jooga oo shaqaynayaan nolosha gabadh ay Soomaaliyeed qabato baan ku soo koobay sidoo kale ujeedada labaad ee muuqaalkan u sameeyay waxay tahay waxyaabaha muuqaal ku jira ay kamid tahay dharka gacanta lagu dhaqayo kariirta la ciyaarayo cilaanka la isku marinayo waxa wajiga la isku mar waxa soo dhan oo la ilaaway inaad dadka dib u xasuusino oo inay fan dhahma sii haysta dhowr mar sameeyaan by the way maalinta anaga sameeynay waxa dareemaynay farxad tiro badan maadaama waqti badan ugu dambeysay sababtaasaan u sameeynay inaad dadka xasuusino indhahooda ay ilaaween magacayga waa Faaduma Aweys sawiradan experiment ay ahaayeen oo challenge ah oo nafteyda la galay marka dadka oo hal abuuriyaasha ah waxyaabaha iyaga mar walba ay la dagaalamaan waxa waaye creativity block wax la dhaho marka creativity block asiyan ula dagaalama sawiradan aan u sameeyay 99 sawir ay ahaayeen maanta marka madxafka waxa lagu soo bandhigay 30 sawir oo kamid ah marka alxamdulillah tajribo oo aan ku guuleystay ahayd in maalin walba si daily ah aan sawir u soo saaro sawir soo burjis gareeyo xaalad walba ku jiro shaqo walba haayo emotion walba markaas ku dhex jiro still ina hal sawir u yaraan aan soo saaro maalintaas ayaa hadafkayga ahaa alxamdulillah wayna hagaagtay in saashi salbari oo toosaan sameeyay sawir gabadhan maalinta aniga aan sameynay ana iga tarjumaysay maalintaas igama haynin inaan sawir sameeyo marka fikradna igama soo dhiceynin wax walba yaani blog ay iga saarnaayeen marka waxaas dhahay bal xaaladaadu ku jirto sawir inta meel kale waxa aad karaadin lahayd marka sketchbook asaas u dul fadhiyay waxa isdahay maxaa sawiray maanta marka ana iska dhax arkay inaan sawir ka soo dhax bixi karo I'm here with Fathia Evans. She's a very talented woman, a woman of many works. I've seen a lot of her work on social media, TikTok specifically. I've seen very big events. So welcome Fathia and tell me about the event. So do Abaya. ما شاء الله أبايو ما تصنتها وكده هاي محل دامك عقب فتحي إيفنتس وها ما أنت كان وقف قادنيني ديزاين سيت أب كديزاين محل دهب installation كيس سمينيني هذا أنا بقعدنا يا وحاول وقف قادنا جزء كز قبل art كذا سو بندقايان resilience كذا مركو كم تفين عنده.
xogaa nooga sharax design-ka qaybta aad ka samaysay and show us. Let's go. waa soo fiirinaynaa. okay diyaar waayo waan show gareyn karaa marka meesha tagno mise waa soconaynaa okay waxaa u sameynay eventka maxaa la dhahaa this oo ah fabric installation oo ka mid ahaa artka si uu soo bixiyo. I don't know if you can tell inuu qurxoon yahay. We also did like the whole setup actually doing regarding the fabrics. Yeah, the window, actually the window ga ugu talagalnay all the fabrics uga jeedaan meesha barnaamijka anaga sameynay. There is a tent oo arkaysa filmka oo sameynayo. That tent anaga sameynay too. And then I don't know if you've seen the hanging arts on that corner. Yeah, kaas oo anaga sameynay. Marka waxaan rabnay inaan bilicda at least bilicda ku darsano qaab maamuuska oo eventka marka waa ka saaxiibtay. Thank you. What was going through your mind that time? Actually markii la soo diray concept-ga, and then from the concept waxaan ku dooranay since wixii gabdho ay yihiin. Last time exhibition badan oo yani la sameeyay like waxay ahaayeen daal or kind of so marka some color of it and touch oo gabar in u baahan yahay. So marka sidaas darteeda maxaa la dhahaa uga qayb qaadanay. I can see this is also art. Yeah, actually marka exhibition-ka ay imaadeen then I realized I realized marka inshallah next time inaan ka qayb qaadano aan rajeynayna oo anaga soo bandhigno. My whole theme was I know. MashaAllah. Also wallahi. Beautiful work that you said then hadii aad u sheegin I'm usually a shy person. Next year inshallah. Like the name is popular. Aniga like I know. Marka waa ka I was like okay I know. Yeah, أنا حتى مقعد I know it's Sarhaj right? Yeah, ما شاء الله. marka barasho wanaagsan insha Allah macallin. Nice meeting to you insha Allah. I hope mar badan inaan saragno insha Allah. Bye. Thank you so much. This is my poem. waxaan ka hadlayaa xaaladaha kala duwan ee dumarka Soomaaliyeed Soomaaliyeed. It's in English. laakiin af Soomaalina waan ku sheegi karaa oo macnaha waxay kala tarjumaysaa xaaladaha kala duwan before the civil war intii dagaalada dhicin dumarka Soomaaliyeed xaaladooda dad waxay iska ahaayeen xaraga badan oo kontiinada dahabka laakiin xaalada dagaalka markay imaadeen kontiinadii ayadii xataa la waayay oo gabadhii yareed timaa u tadacneed wafaad iyo dagaal iyo dhibaato iyo abaaro iyo xilliga ka dambe marka hadda xilliga aad taaganahay dumarka Soomaaliyeed inay yihiin dumar karti leh oo dhibaatooyinkii waagii hore dhacay dhabarka ku xambaarsaday quruxdii waagii horena weli haysta waa dumar yani ha ka soo kabsamaayo aadan ugu dhiirigelinayaa dumarkeena Soomaaliyeed waa dad dhiiran oo awood iyo karti inta badanba sidoo kale iyo dumarka maanta soo jeedinaya